advocate gareynoynaa in mindsetkeena aan bedelno oo Africa loo arko meel assets ay yaalaan not meel deficits in oolin so waxaan ku tala jirno midda ugu weyn kaleete oo Soomaaliya aan ka shaqeynayno hadda program weyn waxa waaye in report Amnesty International soo deysay oo dhahayo drone attacks Soomaaliya ka dhacayo waxay dilayaan dad oo civilian innocent civilians dad aanan maxaa la dhahay terrorist ahayn ama aan ku lug lahayn wax oo terrorism markii dawladda Mareykanka la weydiiyay waxay dhaheen drone attacks ka aan suubino 100% wuxuu kaliya dilaa qof dambi galay ama qof aan ku tuhmeyno inuu dambi suubin doono reportiga markay imaatay annagoo dhan waraaqaan dirnay inaan dhahno suurtagal ma aha aqli ma galayso waxa la iska soo riday in uu only raadsado qof oo la og yahay inuu terrorist yahay suurtagal ma aha 10 xabad aniga hadaan daadiyo ma suurtagalayso kulli dadka xun kaliya inay disho qof kale way ku dhacaysaa soo marka waxaan soo ogaanay in run ahaantii reportigoodu uu saxsanaay America dawladda waxay qiratay in dad oo aan dambi gelin ay ku dhinteen marka hadda waxaan ka shaqeynoynaa sidii aan u bedeli lahayn accountability aan u suubin lahayn programkaasayta oo droneska iyo sidii dadkii dad laga dilay oo xaqdaro loo dilay lacag iyo taakuleen loo siin lahaa ilaan waa naf oo la qaaday oo xaqdaro loo qaaday marka dawladda taasaan ku qasboynaa hadda in regards to Somali drone programs keeda ultimately waxaan anisa u ogtihiin dagaal dhan ka soo horjeeda iyo qof la dilo marka ultimately waxaan rabnaa in programkaasiti la redefine gareeyo because technology waa useful wuu ka fiican yahay dad military oo wadanka loo dhex diro dagaal caadi galo laakiin wili qof ma la hubi karo inuusan dad masaakiin uusan dilaynin Okay, I'll start with my favorite topic Saudi Arabia iyo Imaaraadka and Saudi Arabia iyo Imaaraadka and Ilhan dagaalay ku wadaa I think probably waa the most accurate statement qof uu sheegi karo sababta waxay tahay waxaan aaminsanahay annaga haddii aan muslim nahay in aan ku qasban nahay in cadaaladnimo aan u dhaqanno sababta aan inta u joogno is waxaan ilaawnay muslimnimadeena inay nagu qasbayso inaan noqono dad cadaalad ka shaqeynaayo labadaas wadan cadaalad ka shaqeynteedii intay dhaafeen waxay bilaabeen in ay cadaalad ku xadgudbaan haddii aadan intaas aaminsanayn dan diintaada aan u malaynayaa inaad u baahan tahay inaad gadaal ugu laabatid haddii aad fiirisid dagaalka xaqdarada ay ku wadaan Yemen qof muslim oo dhihi karo maanta Imaaraadka iyo Saudi Arabia waxyaanan laga sheegin oo fiirsanayo boqolkiiba 85 qof 85% waay boqolkiiba 85 dad oo literally starvation face gareynayaan and the only reason ay saas ugu dhacayso waxa waaye labadaas wadan waxay go'aan ku gaareen in dadkaas cariiri ay geliyaan naftooda haddii intaas aadan arki karin then qof xaq u shaqeynaya ma tihid America Congresskeeda waxaan pass gareynay the Yemen War Resolution in aan dhahno wadankeena Mareykanka haddii uu ka shaqeynayo human rights
وآمن سنيهاي هدي ويهاي ودن آمن سن dad masaakiimiin inay ku dhimanayaan Yemen oo aan nahay dad taakulayn u dirooyo dagaalka lagu wadana qayb ma ku lahaan karno kaas ma aha go'aan ilhaan ay gaartay waa go'aan majority congress-ka ama house-ka ha ahaado ama senate-ka ha ahaado waa wax anagoo dhan aan isku wada raacnay biilkii waa pass garaynay waxaan u dirnay madaxweynaha wuu veto gareeyay waxaan aaminsanahay sababtu uu veto gareey asiga wuxuu yiri powerkeygii oo aniga go'aanka aan gaari lahay in dagaal kasta aan rabo aan ka qayb galo aad iga hor istaagsan tihiin laakiin inaan ka hor istaagno is anaga powerka aan leenahay congress go'aanka madaxweynaha markuu dagaal galo go'aan waxay leedahay iyada inay dhahdo dagaalkan waa kugu raacsanahay ama jooji so kaas waa constitutionally balancega power balancega aan leenahay now hadda marka waxaan ku tala jirnaa markii aan laabano in veto-ga city override aan ku suubino because waxa ka socda Yemen oo Saudi Arabia iyo Imaaraadka ay horseed u tahay wax la fiirsan kara ma ah wax aad u xaq daran waay aan haddii aan ku soo laabano Saudi Arabia wiilka soo sheegay oo kaleete shalay ay heeda umaleynaa sadaraad soddon iyo toddoba qof execution ay ku suubiyaan joornaalo badanaa ka hadlay aniga maybe at least 4 mar waa post garay on Twitter madaxweynaha aniga iyo Bernie Sanders iyo kuwa badan waxaan codsanay in uu joojiyo relationship-ka uu la leeyahay Saudi Arabia ama xataa re-examination aan ku suubino wadan ahaan because fundamentally waxyaalaha aan aaminsanahay iyo sida ay ku socoto Saudi Arabia wax oo conflict isku ah waay laakiin marmarka qaarkood inaan xasuusano waay annaga waxaan nahay dad bini aadan ah haddaan xataa muslimnimada iyo aan ka soo tagno waxaas dhan bini aadanimadeena inaan xasuusano waay in qof maskiin ah oo lagu xaq daroonayo aad u danqatid waay markaad fiirisid hadda fiiriya yaa qabo 3 ilmood ani meeshaasaan ka bilaabaa 3 aan qabaa 5 ilmood kor gacantiina ha taagnaato 5 maya gacantiina taaga hadda waxaan rabaa inaan idin tusiyo okay 5 ka badan yaa haysto 6